abwaan axmed saleebaan bidow ka tirsan abwaanadii kooxda waabari ee ku caankayd riwaayadaha heesaha iyo majaajilada ayaa ka hadlay xadhigga loo geystay fanaaniinta xidigaha geeska oo shalay mar kale xorriyadoodii helay kadib markii ay maxkamaddu amartay in faraha laga qaado. abwaanka ayaa caddeeyey inuu ka shaqeeyey isaga iyo suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir sidii loo sii dayn lahaa fanaaniinta xidigaha geeska, waxaanuu iyaga u diray talooyin wax ku ool ah isagoo ku guubaabiyey markay safar baxayaan inay xukuumadda soo wargeliyaan. axmed saleebaan bidda ayaa hadalkii laabsalaax ee ahaa inaanay xuduud lahayn fanaaniintu ku halqabsaday isla markaasina ku raacay, waxaana uu yidhi horta dee inamadu wax kale ma ay dhimin sidaannu u arkayna arrinta iyo hablahoba waxa ay dhigeen waa riwaayaduna may ahayn mid ku saabsan iyada oo ka dhan ah Soomaaliland may ahayn xaflad ciiska ciyaara bay ahayd oo iyagu iska samaysteen taan dhalinyarada waa lagu yaqaan waxay si ahayd markay tagayeen Nairobi ee permission ka qaateen fasaxa qaateen inay halkan ka sii qaataan oo ilaa xamarna waa soo marayna ama sii marayna sidaas hadda sharciga horta fanka iyo sportska iyo ay yihiin baaxuftariga iyo qofku meeshu marayo waa inuu qaataa ruqsad hase ahaatee dhalinyarada noqdeen markaas way ku gafeen wax kale ay dhimeen markii aan waraysigii dhageysanay ama xogagaalkii xuuraanay ma jiraan wax kale ay dhimeen markaas sidaa darteed aniga iyo suldaan maxamed iyo cabdilqaadir suldaan maxamed cabdilqaadir iyo aniga axmed salaam bidaayo rag badan oo kale waxaanu dhawaarday waan uga hadlay dawladda si wacan baan uga hadlay dawladdu si wacan bay wax nooga qaadatay dadkii aanu ka mid ahayn annaga iyo iyagaba oo waxay ahayd arrintu in dhalinyaro ayay nimankii noqdeen inay ku soo qaataan baahida haddii taa la waayay in loo dul qaato la yidhaahdo lala taliyo wacyigelin la siiyo waxoodana ay iska wataan ayay arrintii aanu annagu ku meel dhignay dawladduna inay sidaa ku sii daysay ayaan qabaa hore si wanaagsan laakiin xadhiguuga sharci maaha taa anigu bilaysmihii ormahay waayahay anigu kama tijaabay karo intii xabsiga loo taxaabay iyaga fanaaniin badan oo soo jeeda Soomaaliya iyo Somaliland ba Facebooka aad isku dhaleecanayay saacay taas aad horta fanaaniinta wada fanaan uu hadlaya waana ku hagaagsan yihiin hadii ay dhahaan fanaaniinta laga qafiifiyo arrimaha xabsiga iyo xiritaankan iyo waxna ay dhahaan waa waajib wadaad uu hadla fanaan uu hadla askari uu hadla nin walba ninkiisa uu hadla hase ahaatee waxa weeye waxa soo dhan ka sokeeya in uu hadii aan nimanka waxba dhibin anagu saanu aragno sida lagu sii daayo hadii bindikay wixii wacyigelinaya talaa waa la siiyay maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan Har Wanaag News Hargeysa.